السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعنا ونكسن دمان وضع الصوماليات قوب كستا يقول كستا جوكتان وبرنامج كان يفتيمنتا أو أنماتا يسكدوا التاقي إنه شركي لما يستيركا مامولكا خاتومة استيد مقالة لاس عانود إيا مامولكي خاتومة استيد إيا إرقوينكا وحقرتكا أقوياهنكا إيا إسيمادا كسي يقولقولا إيا قبل كيسول qodobkeena koowaad baan isku dul taagaynaa qodobka labaadna waa dagaalka loo saadaalinaya magaalada Laascaanood iyo ninkii Siciid Hulumbe ahaa oo ilaa xalay ilaa iyo maanta teer iyo shalay tan iyo daraad koox yar oo niic ah oo wax magarato ah oo waxa weeye shirimaad iyo sunuudiyo sankuduul iyo sandareero uu siiyay ay meediya la fadhiyaan Laascaanood baa dagaal ka dhacay dhul baahanta waa islaynaya waa lagu kala guuraya iyadana waa isdul taagaya waxaan ka codsanayaa barnaamijka dug soo gaaro inaad si shargarisid hadii salaadu ku joogtaan u soo tukabad hayna gelin hadii kale nabiga ku salli allahumma salli ala sayidina muhammad waayahay magaaladii Laascaanood ahay gobolkii Sool gobolkii daraawiishta gobonnimada midnimada iyo halganka ummadda Soomaaliyeed ku suntanaa oo ummadii Soomaaliyeed oo dhan isku aragtay wuxuu yiri wixii hore wacwacda hadii aad ogeyd harti oo jifi iyo laflaf iyo koox u soo galaya intaynu niqin baash waa dhaaftay Soomaali weyn oo dhan tan iyo xamar ilaa iyo Kismaayo tan iyo Doobley ilaa iyo Raskamboni tan iyo Saylac baa laga soo socdaa waa la isugu yimi maamul ummadda Soomaaliyeed oo dhan ka dhaxeeya dadku wada leeyahay lagu wada kalsoon yahay eegay dadka Soomaaliyeed wanaag iyo gobonnimo iyo midnimo iyo Soomaalinimo iyo sharaf waxaan ahayn aanu ka soo baxayn ayaa ummadda Soomaaliyeed oo dhani qirsan tahay oo la isku raacay balse waxaan rabaa inaan idin soo taqadimo erga sharaf leh beelweyntay absame oo uu hogaamiyo garaad wiilwal ina garaad kulmiye garaad wiilwal eegay uu hogaaminayo oo hadda Laascaanood ka soo degay oo ismadii iyo garaadadii iyo cuqaashi iyo waxgaradkii maamulka Khaatume State ay soo dhaweynayaan waa ergo horle waxa kale oo iyana jirta ergo cusub oo ka soo muruxsatay ninkii Siciid Hulumbe ahaa munaafiqii eegay dhor wajiilaha ahaa ee dadka doonayay maanta dadka ehelka ee walaalaha ee nabadda ku wada nool iyo maamulka waxa weeye urdinka ah ee gobonnimada ummadda Soomaaliyeed ku dhantahay eegay raba inuu soo taago damac yar oo niica oo liita si fiican baan isaga soo taagayaa garaad kulmiye garaad wiilwal iyo ergadii beelweynta absame baladeegay oo hadda Laascaanood ka soo tagtay wax yar igula ildoogsada ku ildoogsa wax yar balorta waa ergadii uu hogaaminayo oo gadwadeen ka yahay oo horboodayo oo hor socdo eegay garaadkii guud ee beelweynta absame waa garaad kulmiye garaad wiilwal وreerkii absamaha oo Soomaali galbeed ka yimi wax soo dhaweynaya garaadadii iyo ugaasiyadii iyo waxgaradkii hadday Laascaanood ka soo degeen ergooyinkay ka mid yihiin eegay waxa kale inta si dheer ergadii beesha Dubays warsangeli gaar ahaan Dubays oo iyaguna saacadan aan hadda idila hadlayo magaalada Laascaanood soo gaaray waa reerkii Dubays loo oran jiray oo ergadoodii iyo waxgaradkoodii iyo aqoonyahankoodii eegay wata oo ka soo degay magaalada Laascaanood kana mid ah ergooyinka wax ka dhisanaya maamulka SSC Khaatumo waa la isku arkay tiin la jooga oo Axmed Hartiya magaalada jooga oo Axmed Hartiya gabtaan la jooga oo Axmed Hartiya dishisha jooga oo Axmed Hartiya Dubays baa jooga oo Maxamuud Hartiya Umar baa jooga oo Maxamuud Hartiya baladeegay kaskiiqa baa jooga liibaan gasha jooga geesaguula jooga absame reer kama maqna reerkii absame loo oran jiray jidwa iyo ogaadeen iyo isku soo wada dub waa fadhiyaan waa la joogaa fiqishini iyo nimankii habar gidir ergadoodii waa joogtaa eegay warsangeli oo Maxamuud Hartiya Axmed Hartiya oo aniga ah oo tiinle iyo gabtaan la iga socdo reerka dhulbaanta liyaado fiqishini ma dhibaan waa dadka Sool iyo Sanaag degan baladeegay waxa jirta dir oo Sanaag degan oo iyaguna ergada ku jira Suwaaqroon oo iyaguna dadka deegaanka degan oo Majeerteen Maxamed Hartiya waa deegaan dadku wada degan yahay waa maamul ballaaran baladeegay
ummadii Soomaaliyeed oo dhan dir iyo daarood iyo hawiye cid walba ay raali ka tahay jareer baa ka soo socota qallaafe iyo meesha la yiraahdo Shabeelle baa waxa weeye beelweynti jareer ka soo socota raxaweyn baa baydhabo iyo bay iyo bakool ka imanaysa waa maamul nabad iyo gobonnimo iyo sharaf iyo wanaag iyo midnimo ummadda Soomaaliyeed muraayada isku wada daawanayso weeyaan laguna kalsoon yahay waa maamulka qura ee maanta Soomaali dhexdeeda ka jira ee qof waliba waxa weeye ku kalsooni qabo inuu ku noolaan karo wanaag iyo gobonnimo iyo midnimo ummadda Soomaaliyeed laga helayo inta kale maamulada kale maamulo bayna baxayo saaqiday way waa saaqideen laakiin ninkii soo celin lahaa iyo maamulkii isu keenin lahaa ummadda Soomaaliyeed maanta la yeegleelaya qodobkeen labaad waxaan rabaa inaan isku dultaago ninkii Siciid Hulumbe ahaa iyo social media waxa ka socda Ahmed Karaash baa ciidan la baxay lascano dagaal baa ka socda ilaa shalay ilaa xalay ilaa iyo maanta social media Siciid Hulumbe wuxuu soo galiyay waa dhulbaahanta islaynaya meeshan dhulbaahanta ma joogo dhulbaahante meeshan kaligii ma joogo meeshan harti oo dhan baa jooga daarood oo dhan baa jooga Soomaali oo dhan baa joogta dadkii oo dhan baa isugu yimi waa meel lagu soo hirtay nin kasta oo damac leh nin kasta oo kursi doonaya ninkii doonaya inuu soo sharaxo si akhlaaq leh nidaam leh edaab leh buuq u dhicin meesha waxa jooga dad liyaado guuto koobaad oo aan midnimada iyo gobonnimada iyo sharafka maamulka Khaatume State iyo tan Soomaaliyeed ba aan ka kaftamin maamulkan iskama iman wax iska yimi maaha Siciid Hulumbe wax iska yimi ma aha eegay wuxuu ku yimi dhiig iyo dhacaan buu ku yimi hooya u goblantay gabadh ba asay u qaaday aruur ba u agoomowday qaar baa rajo u noqday eegay wiil ba aabihii ku waayay gabadh ba aabaheed ku weyday oday ba ubadkiisa ku waayay lix walaalaaba meel lagu wada aasay maaha wax ayaar ku yimi yalakh iyo adab darro iyo social media dacaayad la soo galiyo iyo sheeko jicsan oo niica inta tiqinay tani way dhaaftay Siciid Hulumbe inta tiqinay way dhaaftay dhulbaahanta islaynaya dhulbaahanta waa waalaya dhulbaahanta miyirsay dhulbaahanta waa fududiya dhulbaahanta waa degay dhulbaahanta waa waalaya ma waale wallahi waa miyir qaba waa ka maanta ku soo jawaabi la firdhi aad u raadinaysid hadaa faray ka bixi weydo ma mahadin doontid dagaal baan galdo yaa ka fataxun yaa sa ku dagaalamaya cidda ku dagaalamaysa Siciid Hulumbe waayo wiilka hartiga ah eegay ee maanta waxa weeye xabad intuu soo qaato ilaa nimanka tanada daarood darbi daarood leelkase eegay ee adeerkeen leelkase dushuusa inooga eegaya aqal xumadaada waa arkay wiilka harti ee maanta waxa weeye qori intuu qaato nin kale oo hartiga ku ridaya waayo oo waliba cid kale ba ha joogtay wuxuu ninkii hanle baa hablaha Allah hadee Hulumbe ma soo taaga cid kale ba ha joogtay ninka adiga maanta xabad ku ridiyay Siciid Hulumbe wuxuu yiri warmaadigii doogta lahaa dimidaabiyada geystay baan doon ogolay adigii loo ogaa waxaad ummadda Soomaaliyeed ku samaysay daarood dhexdiisa ka samaysay harti dhexdiisa ka samaysay maxamed harti iyo maxamuud salmaan dhexdiisa ka samaysay yuu yahay maanta ninka xabad ku ridiyay yuu yahay maanta ninka intuu qori qaato reer kale oo waxa weeye tolkiisa xabad la aadaya harti adaa ugu aqal xun maxamed harti adaa ugu aqal xun maxamuud salmaan adaa ugu aqal xun cid allaalihi cid ka dhageysanaysa warkaasina ma jiro shilintaas siinaysa shilinta siibiid waxa warkaas shilinta siiba ma qalishatay shilintaad siinaysa Muqdisho haday xun tahay iyo hadii xasan xun yahay iyo hadii hawiye xun yahay iyo haduu fiican yahay adiga walaal laba kabood u gashan adiga u socda Muqdisho waa caasimadda ummadda Soomaaliyeed waxaan anigu naco ila naca haye xasan ana jeclaaday ila jeclaada xasan ana nacay ila naca Muqdisho ana caaya ila caaya meesha dad cid adiga ka aqli xuni ma jirto cid ka garasho liidataana ma jirto wuxuu yiri biyaha hortooda arkaa dabadoodu waa huubo war ninka Puntland oo Turkiga degan yahay oo waxa weeye Daarood Ismaaciil degan yahay eegay waxa la arkay ku sameeyay ee u cadaalad fali waayay ee ubadkiisii iyo walaalihii iyo wiilashiisii hantidii ummadda ka dhaxaysay ku safay miyaa Soomaali weyn lagu aamini karaa hawiye waxaad moodo inuu qof waalan yahay dir waxaad haystaa inay waalan tahay war tolka waxaad ku subaxay ninkaad kabaha ka tolinaysid kabiisa la eega waxaad tolka ku sameynaysid oo dadka ay ku sameysay oo Puntland ku sameysay oo maanta doonaysay SSC Khaatume inaad dumisid oo aad doonaysay harti dhixisana xabad isugu dhibtid dadku waa ku jeedaan
maanta qadiifad baa lagu wada fadhiyaa ma aha xilligii awrta la diri jirayo sahanka marka qofka la dirayo fariinta la fari jiray saddexda habeen iyo soo dhixi jiray maaha adduunkii casri buu noqday 2025 baa la joogaa gabadha raas casayr joogta iyo gabadha raas kambooni joogta iyo wiilka saylac jooga waa iska warhayaan qadiifad baa lagu wada fadhiyaa ceebtaadu dibadda ay taallaa iimaan la'aantaada iyo doqoninadaada iyo aqli xumadaadu bannaankay taallaa dadka Soomaaliyeedna way ku arkayaan maanta xasan munaafiq adiga ka liita wallaahi xasan munaafiq adaa xagga hoose ka xiga iimaan la'aan iyo been iyo doqoniino iyo aqli xumo eegay niman hadal waxa li Soomaalidu ku maamada niman weer xajinin bali warna ma xajiyo hadalka ma xajisid oo dood malihid oo deeq malihid oo dirir malihid oo codkarnimo malihid oo aqli malihid oo siyaasad ma taqaanid wax allaala iyo wax maanta lagu hagaagayo Siciid Huluun buu jirto Puntland inaanu ka badbaadino Puntland inaanu ka badbaadino eegay oo deegaanka iyo dadka ka badbaadino waajibaadkaasana saaran qof kasta oo reer Puntland waxa saaran inuu deegaanka iyo dadka ka badbaadiyo adduunyada waxa ay qoom marka la rogayo qofkooda ugu aqliga xun baa talada loogu dhiibaa kii noogu aqliga xumaa ee noogu garashada xumaa ee noogu liitay baatay marka saad reer dhan ummad dhan masiirkood wax doonaysa inay soo tagtid la saxaabada dagaal ba ka dhacay Ahmed Karash meeshan uu soo dagaalamay dhiigay dhacaan buu ku bixiyay waa nin reer Khaatuma ah eegay isaga dhisay mana duminayo kuwiina cashagaya kuwa la yiraahdo Puntland virus kuwa la yiraahdo oo social media la soo galiyay maartay Ahmed Karash ma dagaalamaya ha firdhiye waa kala firdhiye wuxuu kala firdhinayaa miyaad garanaysan Siciid Huluun buu kala firdhinayaa Soomaali diid buu kala firdhinayaa inan gumeed buu kala firdhinayaa saqajaan oo dhan buu kala firdhinayaa maamuladana waa dhisay Puntland la xajaclaa kaga jirta firdhiye reer Khaatuma la xajaclaa kaga jirta eegay dadka reer Puntland iyo dadka reer Khaatumana waa farqura weey farqura ayaanu nahay wiilka la sacaanood jooga iyo kan boosa sadeeqa jooga waa isku mid waa ehel wada dhashiyo uliya diirkeed waxa farta dhexda ka qaniinay oo araxda ka jabay oo khasaaray oo huluunba noqday oo Siciid khasaare noqday oo gabal baas u dumay waa adiga iyo ciraha aad soo dirtay horgal cusub baa tahay wali lama arag oo lama maqal oo laga ma sheekeyn horgal madaxweyne ah horgal hogaamiya waa markii noogu horeysaan aragno wax badan baa waxaan nahay waxa weeye hebel waa horgal hebel kale waa horgal in cambaashay adigu isku mid baatiin maanta Siciid khasaaro Siciid Huluun adiga iyo in cambaasho isku mid baatiin shalay markii baran iyo hadaftimo iyo meesha yada ceel waxa weeye adaa keenay imtixaanka Soomaaliland buugta adiga siday adiga keenay adiga yiri ceerigaaba ku dabaaldega eegay wuxuu yiri markaan faahiye arkana dhareerkay falal akhyari markaan Faaduma arkana lugta faata fakhtiri sokeeye markaan aragtid laba xiniido inta la leeg bad yeelata shisheeyaha markaad aragtidna dhali baa ka jeexma dhali Siciid Huluun dhali baa ka jeexma shalay markay halka joogeen waad aamusay markay ceerigaaba ku dabaaldegay waad aamusay Khaatuma war Soomaaliya sanaag baa la isku darayay horti wax isku darsanay daarood iyo dirta meesha oo deganayeen nimanka waxba la hagaajinaya lama ima karo dagaal baan ka xiga wallahi waa la isku baaya Siciid Huluun baa la dhaw wallahi dagaal baa ka dhacay sidii ay baa dhawaaqday sidii ay baa dhareer ka daatay laakiin firdhiyo waa laandheer dhalay ruux laandheeraysan mood buu ka galay mood wallahi billahi tallahi baan u jawaabay markaas uu gabdha soo dira masuu odayaal lacag soo siiya markaas la caytay cid hada sameeyeen cid wixii qayla iyo cabaad social media ka dhacay cid suuqday ma aragteen cid la hadashay ma aragteen nabadoon falaalu baa ugu dhawaay wuxuu yiri u jawaabi weyno talada seegtay waa walaalka iyo khayr Allah siiyo wadadii Ali ibn Abi Talib buu qaaday ina falaalu nabadoon falaalu wadadii Ali ibn Abi Talib markay khawaaristu la dagaalanto walaallahi inuu khaldamay weeybu walaalkay taladu seegtay weeybu bal gabanimada aday maantana saas Allah subhanahu loogu hoobanaya cid maqan oo magaca daarad iyo magaca Soomaali sheegata ma jirto maanta insha Allah bidillah kariim maanta jimca yahay bari waa sabti shirki waa furmaya Ahmed Karash waa jooga ina Khaliif waa jooga waxa weeye nimankii waxa weeye in kasta aan isku wanaagsanayn bidaan iyo tima cadda iyo eegay waa joogan
وبس يضل لسكهرين أو لسخلافسين هاي أو فرع لسكوت هكتاجيو أو لسديدية أنا بدان تما عضي يوديدنا هذا ندم ما نقدر حيشتي دن ما نقدر حيشه إيجي ما حالته أكيد بان أجاسي ورغمين لكن دم ما نقدر حيشه يضل لسديدية هاي أو على لسكو خلافسين هاي ما وإحنا اللي سلوا قولي وحن ما تكسب النهاي ما ملك يقولوا بسمه أنا جو خلافسن وحبان اسكو ديدنا لكن wax badan baan isku ogolahay waxaan waxa weeye ku kala aragti duwanahay baa jirta laakiin wax badan oo isku aragti ka nahay baa jirta taa macnaheedu ma aha inaan islayno macnaheedu ma aha inaan waxa weeye ismunaafaqadayno maamulkii baa la dhisayaa gobonnimo ka dhacday warsan geli maanta waa dhan yahay Umar iyo Dubeys ba waa joogaa cid maqal Maxamuud Harti laf kasta oo Maxamuud Harti ah waa la joogaa waa la dhan yahay Harti waa dhan yahay jifi iyo laf ilaa absama jooga gobonnimo halka ka soo baxaysa ummadda Soomaaliyeed midnimadoodii baa dib u soo noqonaysa Saciid Hulumbow hadda ku dhowdahay gacmaha taag ceeb maaha isdhiib nin raga hadaa tahay laga adkaa oo taladii meel xun bay kula maraysaa eegay taqalalan ha marine ninba hadda ka hor waxa la yiri laba wada ka hor yimi laba wado baa ka hor yimi wado u saa u maray baa laba saa u kala baxday markaasuu midigta aamini markaasuu wuxuu u yimi meel alla bari intuu ka dhacay la leeyahay afar u fariista daraashiga la diyaariyay gaajada iyo haraadka ninka hayana waa taqajarsan markaasuu markuu meel saddex abo afar ku noqdo markaasuu oohin la fariista waba warti bariisi la soo dhigay war maxaa ku dhaashay wallahi mar baan taqalalan margaar Saciid Hulumbow taqalalan ha marin soo kolonyeeso laas caanad ka soo dig isha soo dhib hadal caataa waliid كني قلبه كو كلمويد يان غاري وكا تغي غاريغا سو كلون يسو لا سعانود ايمو halkaas lagu wada hadlayaa la wada fariisanaya waxa la isla meel dhigayaa doqonay dabkaabe waryaan gabal baas ku dumin aniga intaas way ga talo war barnaamijkaasi share garay waa inoo barnaamij ku xiga tani haduu ku doono xadka tagay warsan iyo nabadino wassalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh